السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا القناة كنا هنيمان وأنا قاولاشين حنان دقن وحنا إذا هنا مانتاي أو عادي سوقد بدون شيكو أما قصة أنا وحنا لو ذا تجبر لقوا عابو حمدي وحكي ترسنتها صحابتنا حمدي وحكونا شاهد الكنا صوماليا وحنا تان قصة وإنه بلعبته حمدي waxay tiri waxaan la noolay familkaas oo ka kooban caruur 8 caruur ah iyo waliba maxaa la dhahaa aabo iyo hooyo 8 caruur ah 6 aniga waa iga waaweynayeen labana waa iga yaryaraayeen familkaas ayaan la soo koray waxaan ku soo koray nolol aad u adag oo aad u dhib badan maalintaas oo aqliyeystay oo ilaa maanta 6 sano 5 sano aan jiray ilaa maantadan la joogo oo dhowr sano 2 sano ka hor waxaan ku jiray noloshaas aadka u adag aniga waxbarasho liima geenin waxaan ahaa qof guriga ka shaqeeya mar walba si dhaqan xuna loo dhaqmo dabcan maamada guriga si wanaagsan aniga ilama dhaqmi jirin balse meel aado iyo waxaan ciirsado midna ma haysan sababtoo ah waxaan ahay gabar yar oo aan aaminsan waxaan isweydiin jiray mar walba hooyada maxaa ka haleysay guriga hadii waxa laga haleeyo waxa ahaa qofka waxa saleeyay waxa ahaa qofka kaliya oo la garaaco ama la dhibaateeyo sidoo kale ilmaha walaalahay hadii waxa leeyaan waa lagu qeyli jiray kaliya waana laga aamusi jiray balse aniga habaar iyo dil ayaa igu diri jiray markaa waxa leeyo waliba aniga waxa leen mararka qaar ayaa waxa laga yaabaa ciyaalka aniga ila dhashay inay igu nabaan ay dhahaan xamdiya sameeysa waxaas waliba maamada hooyadeeda ahna ayadoona hubsanin ee aniga iska kay garaacdo ee idisho ee habaarto mar walbana waxay ahayd mid aniga dhibsato mar walbana waxa isweydiin jiray maxaa haleysay sidii ilmahan ay u jeceshahay hooyada maxay kugu jeclaan wayse si walba ay arinta ahaataba markii aan soo weynaado oo aan 6 sano soo gaaray ciyaalkii dhan kuwa iga yaryaraay hal iga yar ma ogay cunugta aniga igu xigtay iyo kuwa iga waaweynayba waxbarasho la geeyay dugsi iyo iskuul inta ayaa maalmaha kamid waxa uu imaada aabo waxaan weydiiyay inaan waxbarasho la geeyo oo aan rabo inaan wax barto wuxuu igu yiri haye waan fiirinayna maamada loo sheegay maamada markii loo sheegay hooyadana waa ay carootay way xanaaqday waxayna tiri lacag uma heeno ilmaha dhan aan wax ku wada barno xamdi waa inay guriga joogtaa aniga ay caawinayo yaa hawsha guriga la qabanayo yaa kan ii sameeyna iko aabi iyo hooyo oo qaylinayo inta soo dhexgalay aan ku dhahay hooyo maxaa dhacay aniga xaq ma lihimiya sida ilmaha walaalahay inaan wax barto ayagu wax way baranooyin lacagta aniga aan ku baranayo ma ka badan taas way diiday oo inay ugu qaylisay waxay tirina lagama yaabo ina adin ma asrasho isku talinaysid mase aniga ku taliyo aniga waxaan rabaa ina guriga la shaqeysid markii la gaaray ina waxbarasho lagu geeyana waa lagu geeyna laakiin hadda ma aha aabo waxa uu dhihi kareen oo iska aamusay waxaana dhahaa hooyada hadalkeeda maqal meeshaas ayaa hadalka lagu soo xiray marka 12 sano gaaray ayaa waxa laga furay xafadeena iskuul oo lacag la'aan ah oo gabdhaha wax lagu baro meesha markaas deganayna waxaan deganayna gobolada Soomaaliya kamid ah waan baxay waxaan u tagay hooyo waxaan ku dhahay hooyo maadaama iskuulkayga lacagtiisa aadan dhiibi karin ee qaali idinku tahay hadii iskuul xaafada laga furay iskuulkaasna dadka dhan way iska soo qorooyin gabdhahana lacag la'aan waaye oo gabdhaha waxa lagu barayaa si lacag la'aan marka lacag lagaaga baahna inaad dhiibtida waxa raba hooyo iskuulkaas inaa aado maamadii wala ii soo qaadatay wayna igraacday waxayna tiri adiga ma ismaamulaysid adiga ma dhashay adiga ma iska fikiraysid ana ceebeena miya hooyadii waalidkeeda lacag ka dhiib waay la dhaxma rabtaa oo iskuulkaas dadka waxba ahaysan loogu talagalay aan dhigtid ma dhiganaysid waana idib daran tahay waxbarasho marka madaxay ka soo maago aan ku geenaya lagamana yaabo inaa hadda iskuulku geeyo aniga waxaan aqay waa iska baxay banaanka aada maalintii oo dhan waa maqanay duurka ayaan inta galay iska uhinay waxaan isweydiinay dambiga aan galay
iyo waxaa uga duwanahay ilmaha walaalahay ee hooyaday sidaa igula dhaqmayso aabahayna uu u jeedo hooyaday siday igula dhaqmayso maray idisho iyo maray canaanato maray igu qayliso maray habaarto hawsha gurigana ciyaalka kale loo diraynin ayaa aniga bis laygu qabtaa aniga cuntada kariyo dharkoodan dhaqaa gurigan ka adeega haddana habaar iyo khaylo ayaa laygugu sii dara su-aalo badan isweydiiyay waan soo daahay habeenkii markaa guriga imaadana waa laysii garaacay waxaana liidhahay waxaa bilowday miyaa inaa wareegtid madax adeegaa bilowday anaa igu xanaaqay miyaa sidii ayaan iska gadeeyay iskuul iyo waxbarasho waxay ahaataba waan iska daayay iskuul iyo fikirkiisa gurigayga ayaana iska joogi jiray anigoo mar walba isweydiinayo naceebka intaa la-eg oo hooyaday ii qabto weliba anigoo wax ka haleyna mararka qaar ay habaarto weligay hooyaday madaxayga imay hagaajinin timaha waa laiga xiiri jiray sababtoo timahaygu way isku dhegdhegi jireen qof ii hagaajisana ma jirin markaa dhaho hooyo timahaygu way isku dhegeen waxaa rabaa timaha inaa lii hagaajiyana Sakiina intay soo qaadato ay madaxa iga xiiri jirtay markaas ayay dhihi jirtay hadda timahaaga hagaajismay u baahan yihiin markii dharka ciida ciyaalka loo soo gadaayo aniga liima soo gadi jirin dhar qurxan iyo dhar qaali ah toona qofna ima hagaaji jirin ilmaha kale hooyo intay u qubeyso cilaan loo soo mariyo loo labisi jiray anigana dharkayga intaa la siiyo waxaa la idhi jiray dharkaaga xiro weliba waxaa la isoo gadi jiray dhar hore oo waa hore suuqa ku jiray oo aan xilligaas imaanin markaa xanaaqo dhaho aniga dharkaa marabi maxaa dharkaan la isiina ilmaha walaalahay dhar qurxana loo soo gaday oo sanadkan socday waxaa lagu qayli jiray dil ayaana la garaaci jiray sida caadada ahayd waxaana la dhihi jiray anaa bilowday miyaa inaa ugu soo afceliso amartid ma ciidaysid maanta guriga ku waxaa la dhihi jiray guriga ku ganaaxan tahay maanta waxaa ciidaysana ma lahane waa inaa cuntada guriga ah karisid oo meel u bixayso ma jiro howsha guriga qabo sidaas ayaana walaalahay iyo familkayga ku ciidi jireen markii la dhaho maalin ciid waayo aabo dhaho iska dhaaf gabadhan ha iska ciidee oo dul qaadane maamada way qaylin jirta hooyo oo waxay dhihi jirta aniga gabadhan dhexdeena soo gelin ma ku dhihino maxaa dhexdeena u soo gelaysaa faraha iga qaad ana aqaan wixii uroon iyo wixii u daranay hadday bilowda caasinimo iyo in aniga igu afceliso habinintoo fiiriyo shib iska dhaho oo iska bixi jireen xaaladda waxay sidaas ahaato nolol cakiran oo waxbarasho la-aan ku noolaado maalin maalmaha kamid ah ayaa waxaa aaday maalin maalmaha kamid ah ayaan dukaanka soo adeegaynay aniga iyo maamada hooyaday markaa dukaanka tagnay adeegii wixii aan soo qaadanay oo banaanka ani aan taaganahay adeegii aan rabo inaan qaato maamada waxay igu tiri aniga iyo hooyaday ayaa maalin magaalada isla aadnay waana soo adeeganay dukaanka markaa kasoo adeegay aan dukaankii adeegii wixii aan soo dhameysanay ayaa hooyo waxay igu tiri islaanta la soo xisaabtamaya adeeg intaa qaadid orod guriga aaso oo cashada dabka noo sii saar waan soo baxay markaa dhex soo maraayo ayaa waxaa xasuustay guriga inay saliid ka maqan tahay oo inay saliid oolin waa soo laabtay anoo isdhahay hooyo u sheeg saliida ayaa waxaa maqlay waan gaabanahay dukaankana wuxuu leeyahay meel daaqad ah oo shabaqa hoole istaago oo dadka wax looga sheego shabaqiyaan soo istaagay meesha anoo taagan waxaa maqlay hooyo iyo naagtii wada sheekeysanayo oo dhahayo gabadhaneeto hooyadeed ma soo raadsanin miya sida ula dhaqmayso xaaliyey gabadhan qalad waaye sababtoo ah gabadhaneeto waa inaa iskuul geyso sida ilmahaaga oo kaleeto markaasi hooyo waxay ugu jawaabtay iskuul waxaa geenaya mala alxamdulilah ha dhahdo bahda nolosha u daayay oo ilo nooshahay way koraysaa maxaa ka haleysan kulkuulintaas iyo daradaas inta hadda u sameynayo ayaaba saa'id ku kulkuulin iyo maxaa la dhahaa inaa wax baro aniga waajib iguma ahan ayay uga jawaabtay hadalkiina qof ayaa dukaankii intuu soo galay oo hadalkii ka kala gooyay anigana waa naxay maalintaas waxaana garan waayay waxa ay hooyo saas u dhexeyso waan iska soo baxay guriga ayaa imaaday guriga markaa imaaday ayaa meel fadhiistay waana yaabay waxaa horteeda imaaday dhaqmada hooyadii ugu dhaqmi jirtay oo dhan markii hore waxaa u heesa jiray hooyadii inay aniga iska kee canaananayso ama inaa aniga qaldanahay
ama inay dhibaatada keeneen ilmahan walaalahayga oo mar walba hooyadii ugu diraayo oo aniga waxaan sameeyay u sheegay sidaas inay hooyadii isku dhaxday gabadhan way dhib badan tahay mar walba aniga saas iyo canaanato iskuulkii waxa ay diidana aniga ganax iga dhigayso maadaama ay aaminsan tahay aniga inaan dhib badanahay balse maanta waxa ogaaday inay waxaan oo dhan waji kale leeyihiin waan fikiray wax walba ayaan sameeyay waxaas dhahay weydii hooyo maxay saas u dhahday haddana waxaa ka cabsaday inay hooyadii i disho marka la tusiday sameyn jirto kale ama ugu xanaaqdo ama guriga iga saarto meelaha aaday meelaha cirsadan ay isalihiin hooyada la sheegayana aniga aqoon uma lihi maantana waxay noqotay nolosheeda mid waji kale leh waxaa isdhahay bal ogow sida meesha ay ka imaado adiga iyo qofka adiga tahay waxaan isweydiiyay sidee ku ogaan kartaa aaba ma weydiisaa haddana waxaa isdhahay sidee ku dhihi kartaa aabaha adiga ku dhalay weligaana aadan arkin qof kaleeto oo aabaha iyo hooyada ahayn familka adiga ku dhalay ama ha ku dhalaa ama ha kusoo korsadaan say ugu dhiiri kartaa intaa u tagtid inaad dhahdid yaa aniga i dhalay mana laga yaabaa intaa u tagtid oo dhahdid yaa aniga i dhalay inay sidaas fudud ayaga jawaabka ugu siiyaan waan iska aamusay waxaan dhahay waa inaa ogaada aniga meesha ah ka imaada walwal ayaa ii bilowday iyo murugo mar walbana waan ciishoon jiray hooyadii marka hore markay canaanato waxaa isdhihi jiray iswanaaji oo gabar fiican noqo hooyada waxay ka dhibayana ka jooji laakiin maalintaas wixii ka dambeeyay waxaa bilaabay hooyadii markay canaanato inaa isweydiiyo waxay ku ama inaa xanaaqo oon dhaho waxay ku canaanayso ayada ma ku dhalin sawir kale ayaa horteeda imaanaya أنا سي حناقي جري marmarka qaarna waxaa iska celi jiray inaan dhaho korkeyga hataabanin adiga ima dhaline maxaa aniga ii dilaysa waa ogahay waan waxa ii neceb tahay ama waxaa mar walba ii dishay inaadan adiga hooyadeeda saxda ahayn haddana waxaa is dhahaa caasigaas ku noqonin oo ay kale ma aragta adiga waxaa laga yaabaa waxaana is dhahaa mararka qaar maadaama hooyada ay ku garaacayso mar walba si xun ay kula dhaqanto saas darteeda malaha dadku ugu sheekaysay inayna iyada ku dhalin si aan loo dhahin gabara adiga dhashay maxaa saa ula dhaqmaysaa maxaad wax u bareenin mar walbana su'aalo badan ayaa maskaxdeeda ka guuxayay abana aan u heynin walibana aan ku dhiiri karin inaan su'aalahaas jawaabtooda raadiyo waan baxay waxaan isla fadhiistay kaliya banaanka si walba aan u fikirana waan waaye jawaab aniga qanciso maalin maalmaha kamida ayaa waxaan soo qaaday telefoonka aabahay waxaana raadiyay wax sawiro ama wax cadeyn oo cadeynayo in aniga hooyadan aysan dhalin balse waan waaye waan soo baxay maalin maalmaha kamida aabahay oo imaaday waan iskala sheekaystay waxa si kaftana u dhahay aaba hooyo qaylisay markaas xiraadanayaa soo bax banaan marka hooyo qaylisay ayaa aabo waxaan ku dhahay si kaftane aabo hooyo maxay mar walba saa in la dhaqataa hooyadii saxda ah ma ahan miya markaas aabahay wuxuu intuu fadhiistay wuxuu igu yiri maxaa dhahday asaxada ma aha aabo kula kaftamay aniga mararka qaar waxa isweydiiya hooyo ilmaha kale saas u dhaqatay maxay aniga ugu neceb tahay markaas oo madaxa intuu ii salaaxay oo wuxuu igu dhahay waxaas ku fikirin oo ayada ku dhashay wayna ku jeceshahay ilmahan cunug la jecel yahay ayaa canaanta lagu badiyaa soo u tooso marka taas qalad ma aha waa inay hooyada ku jeceshahay inay ku jeceshahay leena saa u sameynayso moogiye ma u sameynayso inay ayada kuna cabtahay ama in ayadu ku dhibaatayso marka hooyadaas kaga dulqaado hoolaha ku badane inta fiiriye marka waxa ku celi aabo wallahi mararka qaar waxaas dhaha hooyada ma ahan runtii ii sheeg anoo qoslayo oo qosol ku duugayo oo is dhahayo ku fahmin runtii ii sheeg aabo oo iida ma idhash ama isbitaalka lagu soo bedela si kaftanaya u dhahay aabo wuxuu dhahay maya gabadheeda mar dambe saas u fikirin hooyada wayna ku jeceshahay waalidku cunugoo jecel yahaan qalbiga ayuu ku haystaa moogay jecelkiisa ma tusiyo wuxuuna canaanta ugu qayliyaa cunug waalidka jecel yahay si uu cunugaas u noqdo cunug adag oo fiican oo meel walba ka soo baxo oona wax qaldi marka hooyada wanaagaaga ka talinaysaa ha u fikirin inay hooyada ku necebtahay waan iska aamusay aabahay hadalku ka soo bixi waayay laakiin waxaa dareemayay inuu aabahay eriga markaa ku dhahay uu naxay oo meesha waxba iga soo baxay inay wax jiraan waxay doonaan noqdaan waa iska soo baxay banaankaas ka imaaday meel aan ka bilaabo ayaan garan waayay
aabbahay waa kan igu inkiro ay dhahay hooyada waa hooyada wayna ku jeceshaa waxay saas u sameynayso mana awoodo hooyada inaan u tago aan weydiiyey sababtoo ah waa maalinta gacanteedu isku dilay haddaan dhaho hooyo adima ii dhalin miya qof kale aan weydiiyey maanta aqaano oo dhihi kara aniga yaa i dhalane ma jirin waan iska aamusay aniga laakiin hoos ayaa waxaan raadinayay si aan ku ogaado meesha aniga ka imaaday familkeena qof ay wax isku yihiin ama hooyaday qof ay xaasid isku yihiin waxaana ku fikiray inaan baxo oo naagta dukaanka la heday aan inta u tago aan weydiiyo qofka aniga i dhalay waan baxay waxaana la saaxiibay gabar ee dhashay naagta dukaanka iska laheyd oo hadalka aan ka maqlay waxaana jeclaystay maadaama aabbahay hadalka ii sheegaynin hooyadayna ee hadalka ii sheegaynin inaan cidaas u dhawaado oo si aynan ogeyn maamadaas hadalkii aan uga maqlo oo iyada afkeeda iiga sheegto gabadhi ayaan la saaxiibay gurigooda ayaa marmar tegi jiray gabadhiyaana la sheekeysan jiray mar walbana waxaa ahayn dad saaxiibe ah aniga gabadhan saaxiibtinimadeeda danka ma lahayn laakiin waxaa ula saaxiibay inaan sirta nolosheyda ogaado gurigooda ayaan tegi jiray ayadana gurigeena ayay imaan jirtay mar walbana waa isla socon jirnay maxaa jeclaystay inaan sii dhawaado oo aan saaxiib dhow la noqdo oo amaamada guriga kalsooni ka keensado gabadhaas hooyadeeda marka dambena aan ka dhaliyo hadalka oo hadalka ii sheegto wuxuu xaalka sidaas ahaadaba habeenada kamid ah ayaa maamada guriga joogto intaa banaanka gurigooda tagay waxaan go-aansaday maanta hadalka inaan maamada ka dhaliyo oo aan u been guuro iridooda ayaan istaagay daamanka ayaan iska garaacay anigu weynayo oo madaxa iska rifay oo rafaadsan ayaa gurigooda galay guriga markaa gala weyn la galay maamadaas oo orodayay maanta gabadheed maxaa ku dhacay kusoo dilay waxay isdhahay jidka loo galay ama jidka lagu soo dila mase ilmaha soo garaacay intaa ooye meel fadhiisay biyo ii keentay ay ku dhahda maadhaay maxaa kugu dhacay markaasaa ku dhaha hooya ay soo dishay mar walbana waxay dhahdaa gurigayga iiga bax balaayaa tahay saanaa tahay firmatihid aniga kuma dhalin ayay dhahda ma aqaanaan hooyadee waxay hadalkaas ii dhahayso iyo waxay dad iigu beerayso aniga maxay saas ii dhahay hooyadii ayada ma ii dhalin miya waan ooy maamadii ayaa i aamusay markii dambena waxay igu tiri haa iyada kuma dhalin waa runteeda markaasaa dhahay maama maxaa dhacay maxaasaas ii dhahe aniga hooyaday waaye mar walba laakiin waxay dhahdaa aniga kuma dhalin markaa dha hooya adi mii dhalino maxaasaan igu dilay kuma dhalin balaayaxa ku dhashay dhahdaa anigaa i dhala markaasay igu tiri hooyadan ayada kuma dhalin waxaana ku dhalay waxay igu tiri sax baa maamadan kuma dhalin markaasaa dhahday i dhalin aabane base ugu tiri aabaha wuu ku dhalay waa aabahaaga saxda ah laakiin hooyadan adiga kuma dhalin adigoo 2 sano jirtad ayaa lagu keenay ayadana kusoo korisay wax ku dhala waxaa uma dhaanto laakiin way iska dhib badan tahay sababtoo ah nacayb ee aabaha iyo hooyada u qabto ayaa adiga ugula dhaceysaa laakiin adiga way kusoo korisay waxna kaamay haleenin laakiin adiga hooyada saxda ah iyada ma aha markaasaan intaan fadhiista ooyinta joojiye aan ku dhahayaa waayo hooyadii saxda intees ka baxday maxaase dhacay ma dhimato islay nooshahay maamada ayaa waxay ugu tiri ma ogi inay dhimatay inay nooshahay laakiin markii lagaa soo qaadayay aabbaha wuxuu guursaday hooyada ayadoo gabar yar ah markuu guursadana meel ayuu degsaday asagoo ka qarinayo hooyada adiga hadda kusoo korsatay hooyada hadda kasoo korsatay ayaa ogaatay muddo kadib markaa adiga dhalatay oo sanad iyo bar jirtay markay ogaatay ayay waxay tiri hooyadana waxay 6 caruura uurna way lahayd markaas ay tiri 6 caruur inta u daadisay ee guriga uga tagtay markuu imaado gurigii aabahan uu shaqeyn jiray oo gobolada ayuu aadi jiray waa hooyada reerkeedii u tagay gurigeena kusoo noqotana way diiday ilaa uu hooyada ka furo ama uu ayada ka furo aabahan wuu fikiray wuxuuna ku fikiray inuu hooyada iska furo maadaama hal cunug bas ay u heysay maamadana ay 6 caruur u heysay sida ay ku kala tageen hooyada waxay ahayd gabar hooyo aaba aan qabin wayna awoodi weysay inay adiga ku karsato muddo 6 bilood kadib markii la furay ayay waxay damacday inay guursato markii ay guursato hooyadana ninka hooyada guursaday ayaa wuxuu yiri ma rabi gabadhan ina aniga haya aabiid la ugeey hadii kala tan waa ku fura ayadana hadii la furo hooyada may rabin in la furo hadii la furana meel ayaa isla soo istaagi lahaydeen oo wax soo kordhayo maysan jirin
haddii la furo ayada ma awoodo inay ku haddii la qabana ma awoodin inay guriga ninkaas kugu koriso aabaha ayay u imaado waxay dhahday ninka saas oo idhahaya haddaan kala tagno gabadhaad miyugu biilane wuxuu dhahay aniga biilku uma siinaay agtaadana soo ma istaagi kari mana rabi familkayga inuu burburo gabadheeda anaa dhalay isoo si anaa heesanayo hooyada way baxday way ku wadatay waxay noqotay dharigii labada dhinac ka gubta markii dambena waxay go'aan ku gaartay inay aabaha kusoo siiso aabaha asagoo kusoo waday guriga markuu ku keenana hooyada adiga kusoo korsato way xaali waxay uga dhigtay shuruud inaanan lagu sheegin qofka adiga ku dhalay hooyadana aysan agtaada soo istaagin weligaana aadan ogaanaynin qofka adiga ku dhalay haday rabaan inaa ayaga ku korsadaan aabihii waxay ku tiri hadaa rabta gabadhan inaa kuu koriyo waa inaadan u sheegin wixii dhalay habartii dhalanaysan agteeda soo istaagin aniga ayaa hooyadeed aniga ayaa dhalay umana sheegi karta cid kale hadaa u sheegaysidna haddaba gabadhaas gurigayga ma soo gelinaysid aabihina waxay hooyada way xaali waxay go'aan ku gaareen inaan lagu sheegin adiga cid ku dhalay oo xaalina sidaas kugu koriso hooyadana maalintaas ayaa kugu dambeysay anigana maalintaas ayaa igu dambeysay iyo dhul meey ka dhacdana ma ogi mana aqaan inay nooshahay iyo inay dhimatay marka waxay ugu dhahday anaga waxa deganeen gobol kamid ah gobolada Soomaaliya waxay ugu dhahday hooyada magaalada Muqdisho ayaa lagu qabay halkaas ayayna u guurtay mana aqaan aniga meel ay maanta ku nooshahay oo ay cirib iyo saan ay dhigtay aniga ma ogi inay nooshahay iyo inay marka tala ayaa ugu cadaatay waxaan sameeyay waan garan waay maamada ayaan ku dhahay hooyo hal mid ma ka codsada ha u sheegin familkayga inaa adi arinka ii sheegto markaas waxay tiri adiga ha u sheegin sababtoo hooyada waa qof carab badan weyn iga xanaaqay hadii ogaato inaa aniga ku sheegay gabadheed inaa ku sheegana ma ahayn laakiin waan isceli waay markaa arkay sida adiga markaas waxaan ku dhahay hooyo ha u sheegin inaa aniga idin imaado maanta hana u sheegin inaa adi arinta ii sheegtay aniga og sida hooyadii ku heli lahay iyo waxa aniga sameyn lahay arinta sidaas ayay ahaadeen sheekadayna maanta qaybtii koobaad halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa la socosho wanaagsan qaybta labaad oo aan idin soo gudbiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bilaa subscribe noo saar hadda intaan la soo gaarto channelkeena share garee asxaabtaada iyo familkaaga kana mid noqo familkeena aad iyo aad ayaad u mahadsantahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu